boqor maxamed jaamac cumar oo ka mid ah bahda dhaqanka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa gudaha degmada Celifin ee gobolka Sanaag ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee degmada Celifin ee gobolka Sanaag oo maalmihii u dambeeyay shaqada dib uga soo cusboonaatay isagoona boqorku ugu baaqay bulshada degmada Celifin ee gobolka Sanaag iyo deegaanada hoos yimaada inay ilaashadaan nabadgelyadooda. arrimaha nabadgelyo ee degmada Celifin iyo deegaanada ku xeeran ugu horeyn waxaan ugu baaqayaa dadka ku nool deegaanadan in ay ilaashadaan nabadgelyadooda inay iska qabtaan oo ka hortagaan kuwa fidnada wada ee fidno walayaasha ee fidnada la wareegay inay isu kaashadaan inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada deegaankan waxa soo maray dhibaatooyin hore dadka deegaanka degan degmada Celifin nawaaxigeeda waxaad moodaa inay ku sifoodeen mahmaadii ahayd doqoni dibirka ma dheragto dhibaato way soo mareen fidma ka dhacday 5 sano in ku dhow ama ka badan bay soo socotay waxyaalo badan baa ka dhacday maanta waxa la marayay meel aan islahayn waxa looga sii socon karaa nabad iyo horumar iyo in wixii hore ee taagnaa wax laga qabto sidaa daraadeed waxaan leeyahay waxa maanta bilaabmay wax loo baahnaa maaha wax cidna dani ugu jirto maaha wax cidna ay ku dhirdayso maaha wax cidna qurux ku helayso iyo sharaf maaha waa wax cid walba saameynaya dhibaato iyo xumaan inna ay ka dhalanayso waxaan leeyahay warwalaalayaalow dadku ilaahay ha ka baqaano xaqiiqda iyo dhabta ha u soo noqdaan iyo samaha iyo wanaag wadada lagu sii socdo waa wado madow oo meel la tegi doonto iyo meel ku dhamaan doonto aan la garan doonin cid ku faa'iideysaana ma jirto waxgaradka iyo uqaasha iyo aqoonyahanka iyo maamulka degmada Celifin iyo culimada iyo inta wanaagga iyo nabadda iyo nolosha jecel waxaan ugu baaqayaa in la isu kaashado la isugu yimaado sidii nabadda looga wada shaqeyn lahaa dhibaatooyinka cidda wadana maaragtay looga hortagi lahaa la isaga kaashan lahaa dhibaatooyinkana aan la sii hurin ayaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa in la isugu yimaado gobol maamulka degmada uu qaban qaabiyo waxgaradka iyo uqaasha iyo intii kale caqli leh culimada diinkuba ay ka soo qayb galaan oo arintaas dhinacyada la iska taago ayaan ku baaqayaa dhibaatooyin badan baa dhacay wax badan oo wax laga soo qabtay oo meel ku taagan baa jiray dhamaystirna u baahna in lagu sii socdo baa loo baahan yahay wax laga qabto waxyaabo ka dambeeyay baa jira waa laga qaban dilal baa jiray oo aan maaragtay wax laga qaban oo cidii geystaan la soo qaban magaalooyin baa jira lagu kala maqan yahay waxyaabo dambe oo dhacay baa ka dambeeyay dhacay baa jira tan hadda Celifin ka dhacay bishii 3 baa jirta waxyaabahaas socda waxaad moodaa inay ku sii haddaan laga hortagin oo wax laga qaban oo caqligu shaqeyn oo miyirku shaqeyn oo dadnimadu shaqeyn inay maaragtay meel kale ay foodo ku hayso wixii hore loo soo qabtayna ay wax yeelayso wixii wax ku xumanaya dhalanaya ayaa muuqata waxaan leeyahay ku celinayaa war ilaahay aan ka yaabno oo ilaahay aan noqono ciidina ku guuleysan mayso ciidina meel ku gaari mayso aakhirada adduuntoona dhiiga ka kulaya dhiiga qofka muslimka ah dhiiga ka walaalka dhiiga caruurta dhiiga dumarka xarinta iyo bixinta maatada ka burburinta digsi waxa yar ee ay haystaan iyadoo ku dhargeysa ma jirto waxa ka dhalanaysa cuqubooyin iyo halaag iyo abaaro sidii horeba idin soo martay dhulka u soo martay ayaa ka dhalanaysa mid kasta oo bela meel ka soo sheega oo meel taleefon ka soo dira ama bela dabada ka afuufaana wuxuu idinka taraya male wuxuu idinka siinaya male waxaa leeyahay nabadda aan ku soo noqono nabaddan ka wada shaqeyno nabaddan aan isu kaashano hala helo cid nabadda ka shaqeynaysa dadka dhaqanka ahaa deegaankan wuxuu lahaan jiray dad guurti ah iyo dad wanaagsan oo dhaqana oo nabadda jecel oo marka wax dhacaan geedka u baxa oo wixii markiiba halkii ku xalliyo ku joojiya waxaad moodaa dadkaas inay dhammaadeen dad bedelaana aanay iman ayaad moodaa kii deegaanka yimaada ee dhaqan sheegtaaba waxaad moodaa intuu koofiyad weyn qaato inuu wax kale ka shaqeeyo ka qayb galo waayo daro dadka haysata waxaan leeyahay nabadda aynu ka wada shaqeyno
maxamed suute telefishinka qaranka somalilan ceelaf weyn.